kadib in muddo oo khilaaf uu ka taagnaa isboortiga degmada ayaa markii ugu horeysay bahda isboortiga waxa ay doorteen hoggaan ay si aqlabiyad leh codka u siiyeen kaasi oo loo doortay Cabdulqaadir Ducaale. munaasabad lagu soo bandhigayay hoggaankan cusub ee hananaya bahda isboortiga degmada ayaa maanta ka dhacday Hotel Salaama ee degmada, waxaana ka soo qayb galay xubno isugu jira bahda isboortiga deegaanka, maamulka culimaadoodinka Ahlusunna ee degmada, qaybaha kala duwan ee bulshada, ganacsato iyo sidoo kale xubno ka tirsan qurba joogta. ugu horreyn munaasabadaasi oo ay soo agaasimeen bahda isboortiga ayaa waxaa hadalla qiimo leh ka jeediyey oo ku aadanaa dhiirigelin iyo sidoo kale horumarka isboortigu uu leeyahay bulshada. xubno horey uga tirsanaan jiray isboortiga degmada balse iminka cuslaaday oo aan soo xaadirin garoomada. Cabdulqaadir Ducaale aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay bahdii hore isboortiga muddada faraha badan waday. tan kale waxaan raacinaynaa maamul horaa jiray oo muddo badan soo shaqaynayay, maamulka ruuxiisu wax badan buu qabto. waxaan doonaynaa marka maamulka cusub oo hadda la dhisay waxaan kala ballamaynaa inuu wax badan qabto oo kii hore intuu qabtay iyo mid ka sii wanaagsan uu qabto. adduunkuna wax walba wuxuu leeyahay isbedel buu leeyahay, qofka asagoo wanaagsanaa baa la bedeli karaa. muddo fara badan baa anaga ruux anagu maamulka soo haynay, kuwa nala midaan la bedelay. aad la moodaa meesha waxyaabaha hadda socda wax aad u foolxun wey inay yihiin oo isboortigii meel kaga dhac foolxun samaynaya. waxa isboortigu waa looga fiican yahay. isboortigu ma laha qabiil, waa deegaan. fahamkiisu waxa weeye inaad deegaan kale uga badsaado deegaan iyo isku duubni. waxyaabaha anagu aan ka soo marray waa la ogaa, iyadoo idinku maamul baad maanta haystaan, jaalid fiican baad haystaan. annagoon maamul haysan baan waxaan ku soo wadi jirnay qababax iyo isriix iyo laqaalaha iyaga iyo xigmadayada iyo caqliga iyaga iyo isbaryo iyo walaalow macaan walaalow haddii lagaa helay codkii wuxuu waa isboorti. waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay hoggaanka cusub ee ay dhowaan doorteen bahda isboortiga degmada Cabdulqaadir Ducaale, waxaana uu ka hadlay waxyaabaha haatan uu qorsheynayo inuu ku soo kordhiyo isboortiga degmada. in ay kabtanada la kala barto, ninkii loo soo magacaabay kabtanadiina waa la kala bartay, kadib doorashaa la galay. doorashadii baan ku soo baxnay insha allahu tacaala. kulley waxaan la ka filaya waa waxqabad. waxaan rajeynaynaa inaan waxayno waxqabad fiican oo dhaminta aan ku bilowno. saasaan jecel nahay. hees baa waxay ahayd ilmaha baran ciyaarna baran isku meel cayomnow ceebka weyn ma jidho. macnaha waxa ugu horeeya qofka bilaadanka ka baya waa inuu wax barto. waxa labaad waa in uu qofku ciyaar barto, waayo ciyaartu qofku waxay ka leexinaysaa muqaadaraadka, qabyaaladda, waxyaalaha qurunka iyo hadda lagu dhaqmayo. insha allah waxaan jecel nahay inaan koob badan bilowno. hadda waxaan bilownay koobkii Serbida, waxaan rajeynaynaa koobka Seeraagana inaan bilowno. maamul aqoon u leh sportska inaan waxayno oo dhalinyarada ka kooban iyo guddiga ciyaaraha dhalinyarada dhammaantood. waxaan ka doonayaa inaan saas yeelno dhammaan inaan ku wada shaqeyno. si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horreysay oo bahda isboortiga degmada Cabudwaaq ay dhigtaan munaasabad ay kaga hadlayaan horumarka isboortiga oo ka dhacda gudaha degmada, waxaana maalmihii u dambeysay socday kulamo ay lahaayeen bahda isboortiga iyo maamulka culimaadoodinka ee degmada ka oo la doonayay in lagu dhameeyo khilaaf muddo soo jiitamayay si loogu gudbo horumar dhinaca isboortiga ah. Cabdikariin Axmed Bulxan, Somali National TV, Cabudwaaq.